kulan habboon daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaraadkii ugu dambeeyay boggeena YouTube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawataan. waa Jimco 13 bisha 3 Maarso 2023 waa maalintii ugu dambeysay ee bishan 3 iyadoo magaalada Laascaanoodna ay u tahay dagaal cusub oo saaka ka socdo. akhbaraadkii ugu dambeeyay dagaalka labada jiha ka socda ayaan daawada kula wadaagi doonaa ilaa hadda waxyaabaha ka soo kordhay. qodobada kale ee magaalada Muqdisho iyo wararka kale ee ka imaanaya gobolka Gedo ayaan daawada warbixino xasaasi ah idinkaga haya. fadlan inala soco ilaa dhamaad ka subscribe tina si gambaleelkana furo, like iyo share tana sidoo kale inugu caawi si asxaab badan wararkeena ay u gaaraan. dhamaantiin waa mahadsantihiin. waxaan ku bilaabayaa xaaladda magaalada Laascaanood. saaka ayaan daawada kula wadaagay in uu dagaal aad iyo aad u culus ka socdo bariga magaalada. dagaalka wuxuu iminka u muuqdaa in uu sii faafayo sidii wararkeennii hore baan idinkula wadaagay. dagaalkan ayaa ka socda laba jiho oo kamid ah kuwa ay isku horfadhiyaan ciidanka dadka deegaanka iyo Somaliland ee ku dagaalamaya Laascaanood. 26kii bishan iyo shalayba Somaliland ayaa cadeysay inay weerar tahay oo ay soo afjarayso waxay ugu yeertay huban ku soo duulay Somaliland ayna dib gacanteeda ugu soo ceshanayso magaalada Laascaanood. labadii maalin ee la soo dhaafay dhalinyaro cusub oo hadda loo qorayo ciidamada iyo kuwa soo ajiibay dalabkii madaxweyne Biixi iyo taliyaha qaybta 12aad Faysal Cabdi Bootaan ee ahaa in la garab istaago ciidamada ayaa la keenay goobaha dagaalka. dadka arrimaha dagaalka aad ula socdana waxay sheegayaan in tani ay jab ku noqonayso Muuse Biixi maadaama ciidankaas ay yihiin kuwa aan tababar fiican lahayn marka laga reebo in la siiyay tababar aad u fudud qorigana horey looga dhiibay. sidaasi daraadeed iyada oo ciidamada militariga Somaliland ay horeyba ugu soo jabeen Laascaanood in hadda ciidamo cusub oo aan horeyba dagaal u gelin hubka fududna la siiyay tababarka asaasiga ahna la siiyay in ay wax ka soo qabtaan ama ay guul ka soo hoyaan dagaalka uu yahay qorshe markaasi aan macquul ahayn. laakiin isku soo wada duube waxyaabaha soo kordha wararka iyo akhbaraadka kale ayaan daawada kula wadaagi doonaa haddii Allah uu dalo waraali ka noqdo. laakiin xusuusnow dagaalkan hadda aan sheegayo wuxuu ka socdaa laba dhinac, bariga iyo galbeedka. saaka 6:30 daqiiqo saacada bariga Afrika ama saacada Soomaaliya si kale hadaan u dhigo ayuu ka bilowday magaalada Laascaanood. faahfaahino intaasi ka badan daawada lama helayo waqti xaadirkan maadaama dagaalka uu yahay mid weli socda. laakiinse haddii uu istaago xilli dhow iyo xilli dambeba waxaan ku soo gudbin doonaa dhinacyada haddii ay isriixaan ama SSC haddii la riixo ama SNM haddii la riixo khasaaraha labada dhinac soo kala gaaro inta ay suurtagal tahay in la helo iyo wararka kale ee la xiriira isla dagaalkaas galbeedka iyo bariga ka socda. waa xilli barqa ah hase ahaatee dagaalka ayaa hadda u muuqdaa in muddo 2 saacadood ah uu daawada socdo. halkan isha ku hay. waxaan filayaa inaad horey wararkeena aad u soo daawan bal warbixintan daawada ila dhageyso oo ku aadan sida Somaliland ay shalay iyo xalayba isugu diyaarinaysay dagaalka. xilli ay xiisada gobolka Sool weli heegada sare joogto, dhinacyadana u muuqdaan inay ku jiraan dhaqdhaqaaq ciidan oo sareeya. maantana la maqlayay hubka culus oo ay isdhaafsanayaan. la baahiyay mowqifka Mareykanka ee dagaalkan iyo jawaabta madaxweyne Biixi ah inuu ciidanka ku amray laba jibaarka howlgalkooda Laascaanood. hadda waxaa soo baxaya macluumaad kale oo xaaladan saameyn ku yeelanaya. aan eegno 5 qodob oo halis badan dagaalka Laascaanood ah. 1. dhexdhexaadinta oo inay saqiirto ku sii dhow. in la helo cid dhexdhexaad ah oo la wada dhageysto, dhinacyada ku wada qanacsan yihiin, fulisana haddii heshiis la isku raacsan yahay la gaaro. lama hayo ilaa iyo hadda. Somaliland waxay ku adkeysanaysaa doonisteeda ah in Sool uu yahay dhulkeeda. arrintan haddii wada hadal laga gelayo loo galo si arrimaha gudaha ee Somaliland si la mid ah colaadii hore uga dhacday deegaanadaas oo u dambeysay Ceel Afweyn oo ay xaliyeen odayaasha dhaqanka ee Somaliland. xukuumaduna doorkeeda uu ahaa fududeyn. doodan Hargeysa waxaa la qabaa madaxweyne Geelaha Jabuuti oo si cad wasiirkiisa arrimaha dibadda kor hore u sheegay in dacdadan ay tahay mid u dhaxaysa dadka reer Somaliland balse waxaa diidan Mareykanka iyo Itoobiya. isimada dhaqanka ee Sool, Sanaag iyo Cayn waxay qabaan inaysan ahayn Somaliland balse ay yihiin dad Soomaaliyeed oo aan ka tegin midnimada Soomaaliyeed ayna raadinayaan nabad iyo deganaansho.
aysan raalli ka ahayn joogitaanka ciidanka Somaliland ee dhulkooda. dadaaladii Itoobiya, Mareykanka iyo odayaasha dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya ayaa fashilmay, qaarkoodna qarka ayay u saaran yihiin inaysan helin kalsoonida darafyada oo dhan. kana u dambeeya oo ah dhaqaaqa duqowda dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya, Somaliland hoos ayay u dhigtay si ay u muujiso inaysan raalli ka ahayn. warbaahinta xukuumadana waxaa laga baahiyay hadallo lagu darayo dhexdhexaadnimadooda iyo kuwa naftoodaba halis lagu gelinayo. cidda shaqada nabadda u dirsatayna waa la duray. xilli xeerarka dhaqanka ee Soomaalida lagu yiqiin isxilqaamka marka ay dagaaladan oo kala dhacaan. 2 dadaallo culimo oo isna dhanka Somaliland ka dhaqaaqi waayay. sida ay xaqiijinayaan macluumaad ay heshay warbaahinta, qaar ka mid ah culimada diinta ee Soomaalida kuna kala sugan Garowe iyo Hargeysa ayaa isku dayaya toddobaadyaddan inay bilaabaan dhexdhexaadin lagu helo nabad waarta, dagaal dambana baajisa. culimada dhanka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ku sugan Garowe ayaa helay qoor dhiibashada ismada dhaqanka, taasoo ay dib uga laabteen dhigooda Somaliland. laakiin culimada Hargeysa oo wada hadal iskula laabtay ayaa soo celiyay jawaab ah inaysan qaban karin maamulka Somaliland haddii go'aan la gaarina aysan damaanad qaadi karin furintooda, taas oo kaliftay isku daygaas inuu dhaqaaqi waayo. 3 madaxweyne Biixi oo ciidamo qabaa'il qoranaya. Somaliland waxay si cad u qaadatay Itoobiyaha in dagaalka u rogto mid bulsho. kasakow in taliyaasha ciidanka ee furimaha jooga iyo madaxweyne Biixi si cad ugu dhawaaqaan in la soo weeraray Somaliland iyadoo askarta ka dagaalamayso Laascaanood. haddana madaxweynaha ayaa 3 maalin ee la soo dhaafay jadwalkiisa shaqo ee ugu badan uu ahaa qaabilaada madaxda qabaa'ilka beesha dhexe ee Somaliland si loogu qanciyo keenida ciidan cusub. boqolaal ciidan cusub ayaa 19 ilaa 20 bishan si idlaadaysa ee Maarso la geeyay Gooja Cadde, kuwaas oo laga qaaday saldhigyada ciidan ee Somaliland oo degdeg loogu siiyay tababar la xiriira adeegsiga hubka fudud, lana diiwaangeliyay muddadii uu socday dagaalka Sool. madaxweyne Biixi oo la kulmay waxgaradka deegaanada Salaxley, Qoodweyne iyo Samawanaag waxa uu sheegay in loo baahan yahay keenida ciidan dhan 350 askari ilaa 600 oo dagaalame oo hubkooda wata, isagoo sheegay in la soo weeraray Somaliland. wuxuuna ka codsaday inay la shaqeeyaan guddiga arrimaha gudaha ee dagaalkan loo sameeyay oo hawsha qoridan ku howlan. sidoo kale madaxweynaha waxa uu la kulmay waxgaradka deegaanada Koonfur Galbeed iyo Belegubadle, wuxuuna ka codsaday inay keenaan 350 dagaalame oo lagu biiriyo ciidanka. waqooyiga Hargeysa iyo Gabileyna waxaa loo xil saaray guddi ay xubno ka yihiin wadaaddo diimeed oo madaxtooyada taabacsan iyo qaar ka mid ah qoyska madaxweyne Biixi. tallaabo kale oo isla qorshahan ku jirta waa in gudaha deegaanada Soomaali Galbeed laga soo qoro dhalinyaro cusub oo la ciidameeyo, taas oo xaaladda uga sii daraysa. wasiirada xanaanada xoolaha Siciid Soob iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa loo diray deegaanada Oodweyn oo iyagana lagu qorayay ciidan cusub. bariga Burco, gudoomiyaha golaha guurtida iyo wasiirka biyaha Cali Mareexaan ayaa iyagana xooga saaraya in la helo 600 oo askari oo hubkooda gacan qabsiga ay beeluhu bixinayaan oo iyagana dagaalkan loo adeegsado. 4 ganacsatada oo dhaqaale laga doonayo. inkasta oo bilowgii dagaalkan madaxweyne Biixi dhaqaale deyn ah ka dalbaday ganacsatada oo qaarkood uu ka helay guryaha dawladana la xaraashay, haddana wejiga labaad waa la kulmida ganacsatada si looga helo dhaqaale dagaalkan lagu galo, iyadoo guddiga arrimaha gudaha iyo dhaqaalaha ee dagaalkan loo xil saaray ay u sheegeen madaxweyne Biixi inaysan Somaliland ilaa Oktoobar wadi karin dagaalkan oo dheeraan doona haddii uu helin dhaqaale xoog badan. 5 dagaalka oo sii xubsiibanaya. ugu dambeyn, haddii aan la helin xal degdeg ah oo lagu baajiyo dagaalka gobolka Sool, dhinacyadana ku gaaraan heshiis ay isku raacsan yihiin, shaki ma leh in colaadan oo hadda taagan isgoyska tar badan ay u weecan karto jihada ay dhinacyada loolamaya u jiidayaan, gaar ahaan xukuumadda Somaliland, taas oo halis badan u horseedi doonto deegaano nabdoon. waa hagaag daawadayaal, warbixintaasi xiisaha leh ciidankaas la qorayo, dhaqaalaha uu dalbanayo Muuse Biixi iyo qodobadaasba iyaga oo faahfaahsan wararkeena kale ayaan kula wadaagi doonaa. markana warbixin hore aan idinkula wadaagay ayaan doonayaa inaan dib idin xasuusiyo waa nuxurka hanjabaada Mareykanka, diidmada Muuse Biixi, faa'iidada dadka deegaanka iyo dhaqdhaqaaqyada socda. aan isla daawano. dowladda Mareykanka oo ah daneeyaha ugu codka dheer marka ay joogto safiirada xaaladda Soomaaliya ka hadla ee loo yaqaan C6+, codkeedana aan ku laran dalalka kale ayaa markii labaad si cad ogala hadashay madaxweyne Biixi arrimaha dagaalka Laascaanood.
oo ay sheegtay in ay ka soo horjeedo sii socodkiisa, sida lagu daabacay qoraal kooban oo lagu baahiyey degalka ay safaaradda Mareykanka ku leedahay mareegtida Twitter-ka. Wadahadal xagga telefoonka oo qaatay wax ka yar saacad ayaa shalay galab dhex maray madaxweyne Biixi iyo safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya, waxaana diradda lagu saaray laba qodob oo kala ah doorashada gudaha ee Somaliland oo muddo dhaaf ah iyo dagaalada Laascaanood. Madaxtooyada Somaliland kama hadlin wadahadalka labada dhinac, balse dhanka safiirka Mareykanka ayaa soo saaray qoraal uu ku cadeynayo inuu ku wargeliyay madaxweyne Biixi laba qodob oo fulintooda laga doonayo: inuu awood u leeyahay inuu ciidankiisa kala baxo aagaga dagaalka, ayna taasi tahay dhabaha rasmiga ah ee xalka Laascaanood iyo qabashada doorasho jadwalaysan oo ka dhacda Somaliland. Labada qodobba waxaa si aan gabasho lahayn loogu sheegay inuu awoodeeda leeyahay madaxweyne Biixi, lagana doonayo inuu fuliyo, taas oo ka dhigan in labada dhinacba ay isku mowqif ka ahayn labada arin ee laga hadlay. Maxay ka dhigan tahay haddaba fariinta Mareykanka? Sida ay ku falanqeynayaan khabiiro saxaafadeed iyo kuwa diblomaasiyadeedba, fariinta Mareykanka waxaa laga dheehanayaa wadahadalka laguma bilaabin laba dhinac oo siman oo wada hadlay. Beddelkeeda waxaa la qaatay dariiqa ah in Mareykanka ay sheegto mowqifkeeda cad waxa uu yahay, xaajadana ay taallo miiska madaxweyne Biixi, lagana doonayo fulinta arrin uu abuuro oo ah labada qodob ee ay sheegtay Mareykanka. 2. Diblomaasiyadda gudaheeda laguma degdego badanaa in la sheego hadalka la isdhaafsaday oo qayaxan haddii aan cabsi laga qabin in daraf ka mid ah dhinacyadu ay qariyaan xogta ama macluumaadka ama leexiyaan sida looga wada hadlay wax ka duwanna ay sheegtaan. Tani waxay muujinaysaa Washington inaysan waxba hambeynin oo ay qarinin. Daraf saddexaad lama sheegin, lamana soo qaadin. Dowladda Mareykanka ma sheegin dhinac kale oo ay quseeyaan arrimaha labada qodob ama laga doonayo fulintooda, waxayna tallaabada cadeynaysaa in Mareykanka ay sheegayso in fulinta labada arrinba laga sugayo madaxweyne Biixi oo ay keligiis ka doono, gaar ahaan marka laga hadlayo qaadida ciidanka iyo doorashada, taas oo ah tafsiirka laga dhex fahmayo weeraha safaaradda Mareykanka hadaladooda. Haddii horey loo oran jiray dhinacyada siyaasadda waa inay isla meel dhigaan jadwalka doorashada iyo hanaan la isku raacsan yahay, ama kala fogeynta ciidamada waa arrin labada dhinacba u taalla, miiska wada xaajoojyadana waa in la yimaadaa. Hadda weerahaasi lama adeegsan, diblomaasiyadda qayaxan lama isticmaalo. USA waxay cadeysay in madaxweyne Biixi uu aragtida la qabin. Caadiyan marka la joogo miiska wada xaajoojyada diblomaasiyadda ama siyaasadda la xiriira, lama shaaciyo xididka wada hadalka ama aragtida qayaxan ee labada dhinac. Marar badan ayaana la arkaa iyada oo dooduhu adag yihiin, haddana ay dhinacyadu sheegeen inay wada hadleen si degan oo horumar laga sameeyay wada xaajoodyada. Laakiin hadda isticmaalka ereyga Mareykanka oo ah hadal qayaxan kana qaawan diblomaasiyadda nuxur ahaantiisu waa in qofka loo sheego run aan barax lahayn oo aan waji qarsasho lahayn ama wax la dhuumasho aysan ku jirin. Haddii xitaa qofka loo wado uu ka xumaanayo ama uunan raali ka ahayn sida hadalkaas loogu yeeray. Laba qodob oo si shacbaxsan uga muuqata fariinta Mareykanka uu madaxweyne Biixi dhaawac siyaasadeed ku noqon doonta. Sida laga dheehanayo fariinta Mareykanka, waxay doonayaan in la qaato go'aankooda oo aan dood laga furin, laakiin madaxweyne Biixi lama qabin kamana rajo qabaan inuu sameeyo in ciidankiisa ka saaro Sool iyo Laascaanood si loo joojiyo dagaalka, ama inuu qabto doorasho ay dhinacyada Somaliland isku waafaqsan yihiin. Waana tallaabada soo dejisay Mareykanku inay shaaciso mowqifkeeda cad. Ma fulinayaa madaxweyne Biixi labada qodob ee Mareykanka uu ka doonayo? Dad badan oo arrimaha falanqeynaya ayaa aaminsan madaxweyne Biixi in dhankiisa aysan marnaba suuragal ka ahayn fulinta qodobka la xiriira inuu ciidankiisa ka saaro gobolka Sool, taas oo uu hore uga diiday dhammaan dhinacyada kale oo ku lug lahaa qadiyadda, doonayayna in xal diblomaasiyadeed lagu xalliyo ka hor inta aan xabadda labada dhinac isgaarin. Laakiin qodobka doorashada, madaxweyne Biixi waxa uu isla xalay la kulmay guddiga doorashooyinka Somaliland, waxauna u sheegay inay qasab tahay in la cayimo waqtiga doorashada, isaga oo guddiga u sheegay inay halis cagaha la gelayso Somaliland haddii aan dhammaadka bisha May ilaa bartamaha bisha Juun ee sanadkan aan la qaybin kaararka dadweynaha isdiiwaangeliyay lana muujin doorasho inay socoto. Madaxweyne Biixi waa fulinaya arrinta doorashada, isaga oo waqtiga ka iibsan doona dhinacyada ay ishayaan, muujin doona dhaqdhaqaaq shaqo. Laakiin qodobka la xiriira arrinta Sool
mar kale Somaliland. qoraal kooban oo lagu daabacay dagalka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland waxa lagu sheegay in madaxweyne Biixi uu ku wargeliyay ciidankiisa inay si laba jibaaraan howlgalkooda gobolka Sool kana feejignaadaan cid kasta oo damacsan in amniga Somaliland ay wax u dhinto. Tani waa fariin daaha ka qaadaysa madaxweyne Biixi inuusan mar raba u soo joogin qodobka la xiriira inuu ciidankiisa ka saaro gobolka Sool, laakiin taas beddelkeeda uu amrayo duulaan cusub. dadka deegaanka maxay uga dhigan tahay fariinta Mareykanka? In dowladda Mareykanka uu ka yimaado warka ah in ciidanka laga durjiyo magaalada Laascaanood waxay guul diblomaasiyadeed u tahay dadka deegaanka oo 6 bishii Febraayo dalbaday in ciidanka Somaliland ay ka baxaan gobolka Sool tagaana xuduudaha qabaliga ah, halkaas markii ay joogtana ay tahay in laga wada hadli karo. Ka hor tallaabada Mareykanku waxa ay kaloo muujinaysaa in dadka deegaanku aysan dagaalka wadin oo cidda wadaahi ay tahay Somaliland. Ugu dambeyn, haddii uu hore u jiray isqaadasho siyaasadeed ama diblomaasiyadeed oo u dhaxaysa Mareykanka iyo Hargeysa, hadda albaabkaas in irdaha loo laabayo ayaa muuqata haddii aan la helin xal kale oo siyaasadeed. Cabdiraxmaan Ducaale oo ah mid ka mid ah dadka sida dhow uga warqaba howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta, dabcan waxay la tahay ereyada kooban ee ka yimid Mareykanka waxayna tusinaysaa in Mareykanka iyo Muuse Biixi ay kala dhammaad joogaan, fariintana ay tahay midda ugu dambeysa ee ay si toos ah dhinacyada isugu gudbiyeen. waa hagaag intaas ayaan daawada doonaya inaan oga tago nuxurka hanjabaadii Mareykanka iyo diidmada Muuse Biixi iyo sidoo kale faa'iidada dadka deegaanka ugu jirto. daawadayo golow inaan intaas ku soo afmeero akhbaraadkii ugu dambeeyay xaaladda waqtigan boggeena YouTube-ka aad ka daawanaysan. fadlan calaamada casaanka ama guduudka ee subscribe oo saar gambareelkan ha ilaabin si asxaab badan wararkeena ay u gaaraan. intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa kale, Allah awood leh haddii uu raali ka noqdo, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaan Allah.